weliga ma isweydiisay wax ka dhigaya adduunyada inay si xawli ah isku beddesho? Maxaa ka dhigaya baabuurta inay noqdaan kuwo iskood isku kaxayn kara oo caqli badan? Maxaa ka dhigaya in diyaarad qaadi karta boqolaal qof ay si amni ah u duusho? Maxaa ka dhigaya in dhakhtarka uu ilbiriqsiyo gudahood ku arko sawirrada gudaha jirka bukaanka? Maxaa ka dhigaya in qofka Soomaaliyeed uu isla markiiba la hadlo qof jooga Maraykanka? Intaan oo dhan ma sixir baa, mise waa mucjiso, mise waxaa jira wax indhaheena aan qabanin? Waxaan kuu sheegayaa hal sir: wax kasta oo aan maanta adduunyada casriga ah ku aragno inta badan waxaa ka dambeeya kombiyuutarro. Haa, kombiyuutarro. Laakiin waxaa laga yaabaa hadda inaad dhahdo, aniga kombiyuutar ma haysto. Ma hubtaa? Aan kuu sheego. Haddii hadda aad telefoon gacanta ku hayso, waxaad haysaa kombiyuutar. Haddii aad baabuur raacday mise diyaarad, ATM lacag kala baxday, isbitaal haddii aad tagtay, mise raadiyo aad dhegaysatay, intaasoo dhan iyo kuwo kaloo badan waxay ku shaqeeyaan kombiyuutar. Dad badan waxay u maleeyaan inuu kombiyuutarka uu yahay keliya desktop amba laptop. Taasi sax maaha. Maanta waxaan doonayaa inaad beddelo sida adduunyada u aragtaan. Kadib markaad daawato fiidiyowgan, waxaad ogaan doontaa inay dunidan ay ku shaqeyso inta badan kombiyuutarro. Aan bilowno. Kombiyuutarka muxuu yahay? Aan isla bilowno sawirka laptopka. Kombiyuutarka ma aha shaashadda, mana aha keyboardka mise mouse-ka. Kombiyuutarka waa qalab awood u leh 4 shay. Marka koowaad, wuxuu helaa xog. Marka labaadna, wuxuu farsameeyaa xogtaas. Marka saddexaad, wuxuu kaydiyaa xogtaas haddii loo baahdo. Marka afaraadna, wuxuu soo saaraa jawaab. Taasi waa shaqada kombiyuutar kasta. Haddii uu weyn yahay iyo haddii uu yar yahayba, shaqadiisu waa isku mid. Aan tusaale fudud qaadano. Waxaad riixday badhanka nalka, isla markiiba nalka baa shidmay. Dad badan waxay dhahaan, nalka ayaan shiday. Laakiin gudaha maxaa dhacay? Qalabka ayaa helay amar, korontada ayaa socotay, qaybo badan ayaa wada shaqeeyay, kadib nalka ayaa shidmay. Sidaas oo kale ayaa kombiyuutarkana u shaqeeyaa. Wax kasta waxay ku bilowdaan amar la helay. Haddaba, yaa qora amarkaas? Qof. Dad loo yaqaano programmers ayaa waxay qoraan wax loo yaqaano code. Code-ku waa tilmaamo. Wuxuu u sheegaa kombiyuutarka haddii uu qof riixo batankaas, samee sidan. Haddii uu sawir la qaado, kaydi. Haddii fariin la diro, u dir qofka kale. Kombiyuutarku isaga ma fikiro, wuxuu fuliyaa amarro. Laakiin processor-ku isaguna muxuu yahay? Gudaha qalab kasta waxaa ku jira qayb yar. Qaybtaas waxaa loo yaqaanaa processor amba CPU, Central Processing Unit. Waa qaybta fulisa amarrada. Waxaad u malayn kartaa inuu yahay cunto kaydiye. Code-ku waa buugga cuntada. Processor-ka waa qofka raacaya tillaabooyinka. Haddii buugga uu yiraahdo marka hore biyo ku dar, processor-ka sidaas ayuu sameynayaa. Haddii uu yiraahdo hadda sawirkeedii, wuu fulinayaa. Ma beddelo amar, ma doodo, wuu fuliyaa oo keliya. Haddaba processor-ka muxuu fahmaa? Ma fahmo af Soomaali, mana fahmo English iyo Carabi toona. Wuxuu fahmaa 2 calaamadood oo keliya: eber iyo hal. Wax kasta oo maanta aragno, sida sawirrada, heesaha, filimaanta, WhatsApp-ka, YouTube-ka, Facebook-ka, dhammaantood ugu dambeyn waxay isku beddelayaan balaayiin amba malaayiin eber iyo hal ah. Waxaasi aan ugu yeerayno binary system. Laakiin maxay tahay waxa muhiimka ka dhigay in kombiyuutarka uu ku hadlo luqadan yaabka badan ee halka iyo eberka wax walba u beddeshay, sida fiidiyowyada annaga aan duubno, codadka, sawirraanteena iyo wax kasta? Sababtoo ah hadda waxaad fahmaysaa inuu kombiyuutarka sixir amba malaawaal uusan ahayn. Wax kasta waxay ku socdaan amarro. Amarradaasna waxaa qoray bani'aadam. Maxaa dunida maanta ay ugu tiirsan tahay kombiyuutarka? Bal hareerahayna aan eegno. Bangiyada, dugsiyada, garoomada diyaaradaha, isbitaallada, warshadaha, beeraha casriga, telefishinada, kamaradaha, baabuurta, telefoonnada iyo saacadaha casriga. Dhammaantood waxay isticmaalaan kombiyuutarro. Xitaa AI-ga maanta dunida ka hadlayso, asaga naftirkiisa wuxuu ku shaqeeyaa kombiyuutar. Haddii uusan jirin kombiyuutar, AI muusan jireen.
waxaa laga yaabaa inaad isleedahay haddii uu kombiyuutarka intaasoo dhan uu sameeyo aqli miyuu leeyahay? Jawaabtu waa maya. Kombiyuutarku ma fikiro sida bini'aadamka, ma farxo, ma xanaaqo, ma gaajoodo, mana riyoodo, mana sameeyo go'aano isaga u gaar ah. Wuxuu sameeyaa keliya wixii lagu amro. Aan tusaale soo qaadano. Waxaad haysataa robot. Waxaad ku tiraahdaa horey u soco 5 tillaabo. Robotku wuxuu u soconayaa horey 5 tillaabo. Haddii aad ilowdo inaad dhahdo joog, waxaa laga yaabaa inuu horey u socdo ilaa uu wax ku dhaco. Sababtoo ah ma aha inuu yahay doqon, mana aha inuu lahayn aqli. Sababtoo ah wuxuu fulinayaa amarkii la siiyey. Sidaasoo kale ayuu u shaqeeyaa kombiyuutarka. Mararka qaarkood waxaa maqalna dad leh kombiyuutarkayga wuu qaldamay. Run ahaantii inta badan kombiyuutarka ma qaldamo. Waxaa dhici karta in qofka qorayay koodhka uu qalad sameeyey, ama qalabka uu ciladoobay, ama xogta la siiyey ee qaldanayd. Taasi waa sababta ay programmerku uu mararka qaar maalmo ama toddobaadyo ay ku qaadato raadinta qalad yar. Waxaan taas ugu yeeraynaa bug. Marka la saxo, software-ka ayaa si sax ah u shaqeeyo. Saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa inaad u aragtaan dunida si ka duwan sidii hore. Hadda intaan nala soo gaarteen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Muuqaalka xaqiisa siiya, commentigana noogu soo reeba waxaad jeclaan lahaydeen inaan ka hadalno fiidiyowga xiga.